تاريخ دوا مدن وجرى مرقاتي وجرى مرقاتي مربي أهيد الدنيا مقتلقو حلابو مهدوي بدنو dadku ayda magansado kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal idilkiinba meel kasta oo aad dunida ka joogtaan iyo xilli kasta oo ay idin tahay caways wacan oo wanaagsan daawadayaal kuna soo dhawaada barnaamijkayga dib u xasuuso taariikhda toddobaadkiiba hal mar aad ka daawataan telefishinka Home Cable barnaamijka daawadayaal aalaba waxaan isku barbar dhignaa dhacdooyin xilli hore dhacay iyo kuwa haatan taagan waxyaabaha ay isaga mid yihiin toddobaadkana waxaan ku soo qaadan doonaa 20 sano ay ka soo wareegtay xilligii Soomaaliland ay dhidbaha u aastay nidaamka dimuqraadiga ah ee xisbiyada badan intii nidaamkaasi xisbiyada badan uu Soomaaliland ka hirgalay waxa xisbiyadu ay wajahayeen hirdan kala duwan gaar ahaan xilliyada ay doorashooyinku soo dhow yihiin iyo shirweynayaasha xisbiyada taasi oo sababta in garabba kala duwan ay xisbiyadu kala jabaan laakiin nidaamka xisbiyada badan iyo saddexda xisbi qaran ee Soomaaliland ka jira waxa uu siyaasi kasta fursad u siiyay in marka uu fahmi waayo xisbigiisa isaga iyo garabkiisuba ay isbahaysi siyaasadeed la sameystaan xisbi kale oo ka soo horjeeda marxaladihii kala duwan ee xisbiyada qaranku ay soo mareen garabadii ay u kala jabanayeen barnaamijka daawadayaal ku eegi doonaa daawasho wacan shacabka jamhuuriyadda Soomaaliland waxay dastuurka u codeeyeen 31 May sanadkii 2001 waxaana ogolaaday natiijada dadkii codbixinta dhiibtay boqolkiiba 790 sida ay muujinayso natiijada soo baxday walow dadka dhaliila aftidaasi natiijada ka soo baxday ay sheegaan in deegaanada qaar ee Soomaaliland aan dastuurka loogu codeynin dastuurka Soomaaliland waxa uu noqday mid dhaqan gala 13 bishii 6 sanadkii 2001 dastuurka dalka qodobkiisa 9 waxa uu dhigayaa sida tani nidaamka siyaasadeed ee Soomaaliland waxa saldhig u ah nabad tala wadaag dimuqraadiyad iyo hanaanka xisbiyada badan iyadoo sidaas laga duulayay isla sanadkii 2001 Soomaaliland waxa ka hirgalay nidaamka dimuqraadiga waxaana sanadkii 2001 dalka laga furay ururadii siyaasadda ee Soomaaliland kuwaasi oo gaadhay 10 urur siyaasadeed waxaana ay ku tartameen doorashadii ugu horeysay ee golaha deegaanka ee ka qabsoontay deegaanada Soomaaliland isla sanadkii 2001 waxaana xisbi ahaan u soo gudbay saddexdii urur siyaasadeed ee kala ahaa udub ucud iyo kulmiye saddexdaasi xisbi oo ku tartamay doorashooyinkii Soomaaliland ka dhacay ilaa sanadkii 2010 waxaana doorashooyinkaasi ay kala ahaayeen kuwa golo deegaan golo wakiil iyo mid madaxtooyo xisbiga udub oo saaxadda siyaasadda Soomaaliland ka baxay sanadkii 2012 ayaa shirweynihiisii ugu dambeeyay oo qabsoomay sanadkii 2009 waxa ka dhashay khilaaf xoogan oo siyaasadeed oo keenay in xisbigu uu kala jabo laba garab mid kamid ah garabadaasi ayaa waxa uu la magac baxay garabka isbedel doonka ee xisbiga udub garabkaasi ayaa isbahaysi siyaasadeed waxay la sameysteen xisbiga kulmiye waxaana daawadayaal aynu milicsan doonaa xafladii loo sameeyay garabkaasi ka soo baxay xisbigii udub kuna soo biirayay xisbiga kulmiye munaasabad ballaaran oo ka qabsoontay hotelka ee magaalada Hargeysa ayaa soo dhaweyn loogu sameeyay waxaana halkaasi ka hadlay mas'uuliyiinta labada dhinac gudoomiyihii xisbiga kulmiye ee xilligaasi Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo ayaa xafladaasi ka hadlay walaalaheen isbedel doonka garabka udub أجري كسر بمن تحسب الكلمية وحان لنا عاد عاد بر يسر ويننا قلب فرن يلا فرن بعد كسر ويننا سيب حدا كسر ويننا زود ولا يا جماعة شرف يقين وين بيت هاي هذا لازم ديما قال كذا شو تشدي وحان دي شيءنا ولا هاي حزبك كلمية هي مدحديسو هي تاغيرياشيسو oo cid walba leh gobol walba leh deegaan walba leh dhalinyaro haween odayaal waxgarad cid walba ku jirto waxa uu u taagan yahay inuu maanta dalka iyo dadka Soomaaliland ee ay ogsoonahay halka uu soo maray iyo dhibaatada uu soo maray xornimadiisa iyo madax banaanidiisa inuu ku hago oo ku toosiyo dariiqa saxa ee toosana horumarka u keeni kara ee u keeni kara cadaalad u keeni kara ee u keeni kara sinaan u keeni kara ee u keeni kara raaligelin ummadiisa iyo shacbigiisa oo dhan xukuumad sidii wixii loo baahdaba iyo dhinacii loo baahdaba xilkii looga baahnaa dowlad buuxiya ayaa laga dhigi doona insha Allah billahi karim
aniguna waxaa idinka ballan qaadayaa oo aan kalsooni badan ku qabaa maanta waynu ku guulaysanaynaa doorashada aynu ognahay wakhtigeedii lagu dhawaaqay saadii la yidhaahdo saacaddii unbaa laynagu dhawaaqin laakiin waa la sheegay wakhtigu inuu aad iyo aad inoogu soo dhow yahay aad buu inoogu soo dhow yahay waxa aynu maanta u diyaargarownaaba waa sidaynu hawlgeli lahayn sidaynu shacbigeenna iyo ummaddeenna innagoo la kaashanayna ilaahay la kaashanayna innagoo dadkeenna la kaashanayna innaga oo gacmo haysaysanna iswada barbar taagan aynu isbeddelkaa aynu kaga rumayn lahayn ee xaqiijin lahayn dalkeenna iyo dadkeennu maanta u baahan yahay dalkeennu maanta wuxuu u baahan yahay cadaalad buu u baahan yahay dalkeennu maanta wuxuu u baahan yahay horumar buu u baahan yahay mid dhaqaalo u baahan yahay mid bulsho u baahan yahay اعتراف وباهي أقوس وباهي نبتجري وباهي إنه الشعب يسوع ولا لونه ومدوه وقعرايس خبصه ومن سوى كابو باهي تاوي بكبر لقاعدة واتاوي geesta kale gudoomiye ku-xigeenkii koobaad ee xilligaasi ee xisbiga kulmiye muuse biixi cabdi haatan madaxweynaha Soomaaliland ayaa isna halkaasi ka hadlay oo jeediyay hadallo uu ku soo dhaweynayo garabka ku soo biiray bulshooyinka kulmiye maanta waxa inoo sharafa oo inoo guula oo libin kulmiye iyo Soomaaliland u soo horeeyay haddii walaalaheennii waxgaradka ahaa siyaasiyiinta ahaa talada dalka ragga ugu waaweyn ka mid ahaa ay maanta fikradoodii iyo teenii kulmiyeen midoobeen halkaan maanta isku aragtida noqonay aan wadagelayna hawsha qaranka dalka waxaan ugu sheegaynaa kulmiye maxaa loogu soo hagaagaya haddaan kulmiyanahay maxaan sii haynaa marka hore waxaan sii haynaa walaaltinimo waxaanu soo haynaa in Soomaaliland soo wada baahan tahay waxaanu haynaa in keliya wax lagu gaari karaa midnimo waxaan ognahay bini aadamku meesha inuu talada si loo yimaado oo talada lagu muujiyo taa waxaan aaminsanahay in khilaafku bini aadamiga uu la dhashay iyo ra'yiga kala duwan waayo culimada qaarkood waxay dhahdaan khilaaf raxma biyuhu ayaa ugu wanaagsan oo waxa oo nijaasaba mayra biyuhu haddii ay ku noqdaan meel fadhiya way socon waayaan way qumaan taladu haddii la rogrogi waayo oo kolba wax laga bedeli waayo oo kolba waayaa cusub iyo waa kula talada la qaadi waayo taladuna way qultaa sida maanta Soomaaliland madaxtooyada haysata kulmiye waxaan ugu imanayaa qof wal oo ku Soomaalida ka soo talagala oo koob ka tiragina maanta yimid iyo sidaayay aasaasay inay talada dhexdoo tahay waxaa doomanaysa saacadii walba inuu ra'yigiisa talagalkiisa leeyahay halkan inta badan raacdan loogu hogaansanayo raad kulmiye weyn sawaaka laga bilaabo saacadda maanta halkaan isugu ma kala leeyihiin ku sii horeeyay iyo ku dambeeyay marihin nin walba inta ilaahay garaadka gadiimo dadku wuxuu ku tarayaa nin walba halkaan kulmiye koowa ka tahay wada jib iyo midnimo inoo koowa ayaa madaxda naga soo dhawaada kulmiye barnaamijka dalka uu ka sugayaa waa doorashada galaya bacd habka uu doorashada u galayo iyo sida uu galayo aanu geli maayo rag baa taa saaran oo noogu qaabilsan oo habeenay maalin ku dambeeyay oo soo diyaar ku halkaas laakiin mabaadi'da guud ee kulmiye lagu soo hagaagaya bulshooyinka Soomaaliland inta aanu lagu hormari malaha aan gaaro waxaan u sheegaynaa programkii oo faahfaahsan waxaan soo deyn doonaa saacada ma hadii la laakiin tuuqooyinka oo guud baa lagu soo hagaagaya oo kulmiye kow qaaro waa maxay transparency ومحايا إن قد كالسوماليland مواضي كالسوماليland لك إيا قد نوين مدوين إيا مدير إيا قوان هايبسوع إيا قرائي كالهاي خيار بلان إيا خيارية إيا قاربال ويتربيه أسما إني تنوي وليه ويوحوه وصن كرام ونوه لك كان اسميها وطلعي ليه يقول وحوالله وكبيرة وأصارة إن شرعي وفقامية دلك ينم والبا مدحوينها أي مدورين يك حزب غير كبلاحكا مد والبا إن شرعي وحكمه ويهي شقاري شعب ودي بتي شقو قراري خلاص طاعني إسلام مركز شرعي أنا نقولين إن كروح قوله الدنت الكفر شتو الشرعي ونقول محي
marka hore ee decisionka sharciga la sameeyo inay ummaddu ogtahay sharciga loo soo wado oo ka qayb gasho ma aha dimuqraadiyad oo keligeeda ma ballan qaadi karta xuquuqda muwaadinka ka laga tirada badan yahay iyo ka aqoonta siyaasadeed aan lahayn si aan loo dulmin dowladda uu kulmiya keeni doono ee dalka hogaaminaysa ku halayn mayso oo dimuqraadiyadda madaxweynaha doortay iyo gobol doortay waa inay jiraan saxaafad xor oo ilaalisa iyo ururo bulsho oo gaar ah iyo danaha dalka oo dowladdiisa si sharciga loo fuliyo kulmiya wuxuu uga imanayaa uu golajo leeyahay dowlad boliiskeedu dhex yahay madaxweynaha iyo muwaadinka suuqa jooga ee aanu madaxweynuhu si dowlad wareegsan oo sharcigiisa iyo qaabkiisa loo sameeyo waxa qooho kulmiya aaminsan in la heli karo inuu sharcigu xukumo marka la helo garsoor xor ah oo ka madax banaan madaxtooyada oo ummadda u dhexeeya oo madaxtooyada soo amray sharcigu wuxuu noqonayaa mid xukumo oo kulmiya hirgelin doona haddii alla idhaahdo in hantida dalku dadka u dhaxayso oo aan ninka ila dhaqaale joogaa intuu doono intuu qaata ku nabadgelin ee lagula xisaabtama hadduu xoolay ummadda boobo oo loo helo hal loo raaco ummadda xoolada lagu ilaaliyo ama aanay madaxtooyada xoolaha ummadda say doonta u maamilin ee la ilaalin karo u shaqankooda kulmiya wuxuu muhiimadda ugu horeysa u saaraya xukunka uma doonayo in uu isagu hadii jeer ku buuxsado xaasha inta hogaamisa ka eega gudoomiyaha sharxana imkaynu goynayno madaxtooyada bal soo qiyaasa 40 sanadood uu shaqaysan lahaa ama uu dan qabsan lahaa 40 kale halka buu ku soo jiray maanta waxa uu tagay inuu xaga tago oo noqdo Nelson Mandela Soomaaliya inta loo socota ee halaagga jirtana waa wabi niman dalka naftiisa u soo horay kulmiye oo aan la soo tijaarin ka targeli maayo leen imika jeebka bilsanay taa waa ku qorqaday soo urin waxaan ku soo korayaa walaalaha maanta noo soo biiray waxaan aad soo dhaweynayaa ragga maanta soo biiray hebel oran maayo nin gaara ayaan baan aad soo dhaweynayaa maxamed cabdi siyaasadda in xaaja hadiye oo qoranaya wixii reer Hargeysa ama Soomaaliya siyaasadda yaqaan aad u garanaya siyaasiyiinta garabka isbedel doonka ah ee xisbiga udub ka soo goostay ayaa iyaguna halkaasi ka hadlay aad ayay u tiro badnaayeen balse qaar kamid ah aynu milicsan hadaladii ay maalinta halkaasi ka jeediyeen horta mudanayaasha markii uu dhacdaan mudanayaasha baarlamaanka state baan deegaanka Hargeysa 5 mudanaan ugu jiro guurkiya ayuu maaliin tirsanayno qaabaa wali kaarkaala laakiin oo fadhiya golaha dhaciya guriga jooga tiro badan baa runtii ka joogta waayo meesha ilaa tiro golaha xaraba jiro xisbina ma jiro laba nin oo saaxiib ah idinka xaqiiqa ka soo xarraba meesha ay kala doonaan annagu imaanta ka wadiinay niman darajo soo doortay qoraalka iyaga ka arkaysan waxaanu idinku wax muhiim oo sooka sidii maamul hagaagsan dalkan ugu helaa dalkani ay nolol wanaagsan u helaan midda aad iyo aad u importantkee loo baahan yahay inay haddii ilaahay ugu guuleeyahay dadkeenu civil society wax aawayaan waxay ka yaqaanaan dowladnimo nimankeena ilaa 60 jooga horta dowladda leeyihiin ma aragmada ka maqaan mooyaan dadkeenu xoolo weyn bii nooga baahan dadkeenu aqoon badan bii nooga baahan oo dowladnimo taama aynu ku gaarno ilaahay waxaan ka barayaa kuwii isu cawar wanaagsanaya hawsha ay wada gudbadeena kamana dhaleen ilaahay naga dhigo waan doonaynaa gudoomiye dowle haddaada bedelkeeda yahay fikirkeedu fog yahay oo golay waa aftiino inkuma qarsoonee wadamadan aynu jaarka nahay ama calaamaha inaga soo horjeeda dee berigii hore raggu way tacabiri jireen oo way doofi jireen hablaheedii baa tacabiraya oo haddaada dumartale xeebta ku dhammaaday oo
waxaan loo baahannahay dowlad hablaheedii soo celisa yaban baa lagu haystaa oo ay u shaqeeyaan mataqaanaa sidee aan ahayn xoor bay u shaqeeyaan marka guddoomiye wax fara badan halkan ka sheegi maayo waxaan loo baahannahay dowlad nabadda ka shaqaysa waa garanaysaa dadku nabadii waxa weeyaan oo dadka isgaadsiisa oo haddii guddoomiyaanahu markii hore aan islahaa madaxweyne dooro dad ba iga ahayd oo waxaad islahaa wax walba waa dhici karaane daahirayaan ayuu halkan ku soo noqonayne gudahaba ku soo reeb baa lahaa runtii gudahaya ku soo reeb baa lahaa xisbiga UCD ayaa isna khilaaf siyaasadeed oo xoogan ka dhex qarxay sanadkii 2011 khilaafkaasi oo gaadhay heer maxkamadeed ama in maxkamad la isla galo laba garab ayuu xisbigaasi u kala jabay waxaana kala hogaaminayay allaha u naxariistay aadan mire iyo sidoo kale injineer Faysal Cali Waraabe gudoomiyaha xisbiga UCD garabkii uu hogaaminayay rabbi naxariistii jannaha ka waraabiyay aadan mire ayaa markii xisbiga kulmiye talada dalka uu la wareegay sanadkii 2010 waxa uu furay urur siyaasadeedadii taasi oo sababtay in garabkii uu hogaaminayay aadan mire ay furtaan urur siyaasadeed maadaama oo la helay fursad lagu furan karo urur siyaasadeedkaasi oo la magac baxay wadani kaasi oo hogaaminayay Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi Curo gudoomiyaha haatan ee xisbiga mucaaradka ah ee wadani sanadkii 2012 urur siyaasadeedadaasi waxay ku tartameen doorashadii golayaasha deegaanka ee Soomaaliland ka qabsoontay waxaana xisbi ahaan u soo gudbay UCD kulmiye iyo wadani oo ahaa xisbiga ugu cusub ee xilligaasi saaxadda ku soo biiray xisbiga muxaafidka ee kulmiye haatan talada dalka Soomaaliland hayo talada dalka ku guuleystay sanadkii 2010 ayaa isna shirweynahoodii ay qabsadeen ee lagu soo dooranayay murashaxa jagada madaxweynenimo ee xisbigaasi ku matali doona ayaa waxa uu sababay khilaaf xoogan inuu soo kala dhex galo xisbigaasi taasi oo sababtay in mas'uuliyiintii xukuumadda kulmiye ee uu hogaaminayay madaxweyne Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo qaarkood ay iska casilaan xilal wasiirnimo iyo sidoo kale joogooyin kale oo ka tirsanaa xukuumaddii uu hogaaminayay madaxweyne Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo mas'uuliyiinta oo xilligaasi qabtay shirar jaraa'id oo kala duwan bal aynu milicsano daawadayaal isa wala socotaan waxaan ahay murashaxnimadeena wali waa taagan tahay waxaan maanta goostay inaan shaqadii aan qaranka u hayay Soomaaliland aniga wasiir khaarijiga ka risaan garayo marka ugu horeysa waxaan u mahadnaqay madaxweynaha iyo dad shacbiga reer Soomaaliland ee igu aaminay mas'uuliyadda weyn waxaan leeyahay aad iyo aad baa u mahadsantihiin markaan iga xaaladdu u socoto iyo maanta wararka ka soo baxaya madaxtooyada aan la filayn ee madaxweynihii shalayta lahaa dhexmaanahay uu ku dhawaaqay inuu dhinac jiro alxamdulillaah rabbil caalamiin wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillaah marka waxaan ku qancay runtii inaan xilkii ka tago wasiirnimo marka maanta laga bilaabo oo ay tahay 26 bishu waxa weeye waxaan iska casilay xilkii wasiirnimo waxaan iska casilay maanta shaqadii aan u hayay xilkii aan hayay wasiirka iyo shaqada iyo arrimaha bulshada waan iska casilay laga bilaabo maanta inaan laga bilaabo saacadan aan joogno aan iska casilay xilkii wasiirnimo ee aan ka hayay wasaaradda cadaaladda sida ay saaxiibadayba cadeeyeen in xubinnimadii golaha wasaaradda ee aan ka hayay xukuumadda uu madaxda ka yahay madaxweyne Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo ee ahayd wasiirka wasaaradda hawlaha guud gaadiidka iyo guriyeynta inaan iska casilay marka laakiin kaliya waxaan rabaa inaan sheego nin gabiyey oo loo jeeday Cali Dhuux baa wuxuu yiri rag cadaalad waaya sidii cawsha kala yaa waxaan halkan ka cadaynayaa inaan dadkii aan la midka ahaa ee aan isku mowqifka ahayn inaanan ka hadhayn ee la aranahay ayaan halkan ka cadaynayaa waan iska casilay xilkii aan ka hayay dawladda iyo golihii iyo xisbiga kulmiyaba waxaan halkan maanta ka cadaynayaa inaan iska casilay anigoo Mawlid Waris Cabdilaahi ah oo taytalkaygu yahay agaasimaha guud ee wasaaradda warshadaha inaan iska casilay xilkii aan ka hayay xukuumadda waxaan go'aansaday inaan iska casilo xilkii aan ka hayay xukuumadda madaxweyne Axmed Maxamed Siilaanyo ee ahaa wasiir ku-xigeenka shaqada iyo arrimaha bulshada waxaan halkan ka cadaynayaa in aan la qabo qolooyinkii iga horreeyay sida ay u cadeeyeen in aananu ku qanacsanayn maadaama xisbiga kulmiye uu yahay xisbi ku abtirsada dimuqraadiyad xidhitaanka loo xidhay cid ka mid ah murashaxiinta marka halkan waxaan ku cadaynayaa in aan anoo ixtiraam badan madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland u haya isagoo anigoon qabiil ku iman
odayna aanu ii geyn isagoo miirkiisa iyo maankiisaba qaba uu ii igmaday in aan halkan maanta xilkii uu ii wakiishay ku dhiibay ku-xigeenka deegaanka iyo wasaaradda deegaanka iyo horumarinta deegaanka ayaa isna halkan jooga wasiiray Axmed Maxamuud Nuur baa la yiraahdaa Professor Axmed Maxamuud Nuur waxa halka maanta aan ka cadeynayaa inaan xilkaygii wasaaradda wasiir ku-xigeenka deegaanka aan iska caasil dhinaca kalena wasiirka wasaaradda warfaafinta Cabdullaahi Maxamed Daahir Xuguso isaguna halkaas ay mas'uuliyiintu isku casileen si degdeg u yimid ayaa kulan ay wada yeesheen mas'uuliyiintani waxa ay u muuqdeen mid isku afkaran waayeen waxaana isagoo la hadlay warbaahinta uu sheegay in xukuumaddan ay ka shaqeynayaan sidii loo sugi lahaa ammaanka iyo nabadgelyada Soomaaliland waarkaysaano wasiirada iscasilay way dhacday waxaanu ka shaqeynaynaa inuu dalka nabadgelyadiisu ay sugnaato waxaanu ka shaqeynaynaa inay dawladnimadu inoo dhisnaato shirka golaha dhexe ee kulmiye iyo kulmiyaba waxa ka weyn Soomaaliland waxaanaynu nahay dal waxaynu nahay qaran waynu u baahannahay marka mid caroodo mid nabadda ilaaliyana inaynu helno waynu u baahannahay inaynu dhammaanteen isku dayno inaynu sulaxa iyo nabadda ka shaqayno waxaanu doonaynaa inaannu ku soo dabaalno jawi caadiya oo uu ku noqdo nin waliba wuxuu tirsanayo waxa deeqa oo lagu kala bixi doonaa cadaalad xisbiga wadani ayaa siyaasiyiinta xisbiga kulmiye ka soo diga rogtay waxay geliyeen awood horseeday in xisbiga mucaaradka ah ee wadani doorashadii madaxtinimo ee sanadkii 2017 Soomaaliland ka qabsoonta ay qirinqiir geliso xisbigii kulmiye oo isagu muddo dheer soo jiray waxaana ay ku guuleysteen dadkii codbixinta dhiibtay 42% walow xisbiga talada hayay kulmiye uu ku guuleystay doorashadaasi haddaba daawadayaal marka ay soo dhawaadaan shirweynayaasha xisbiyada ee lagu dooranayo hoggaanka ugu sarreeya xisbigaasi waxa xisbi kasta ka dhex bilaabma hirdan u dhaxeeya jamaahiirta xisbigaasi ee doonaysa inay qaadato hoggaanka sare taasi oo sababta in garabyo uu kala jabaan xisbiyada sida aad ku daawanayseen warbixinteenii hore xisbiga talada dalka Soomaaliland hayay kulmiye ayaa haatan isna waxa soo kala dhaxgalay khilaaf xoogan taasi oo sababtay in siyaasiyiin tiro badan oo xisbigaasi muddo dheer joogay ay haatan banaanka joogaan xisbiga mucaaradka ah ee wadani ayaa laga yaabaa in maalmaha soo socda isbahaysi siyaasadeed ay la saxeexdaan saraakiil hore uga tirsanaa xisbiga kulmiye kuwaasi oo uu ka mid yahay Maxamuud Xaashi Cabdi oo hore u sheegay inuu u tartamayo hoggaanka sare xisbiga kulmiye balse madaxweyne Muuse Biixi Cabdi ay isfahmi waayeen wada hadal ayaa u socda labada dhinac waa Maxamuud Xaashi dhinaca uu hogaaminayo iyo sidoo kale Cabdiraxmaan Maxamed Cabdillaahi Cirro gudoomiyaha xisbiga wadani sida ay xaqiijiyeen isla saraakiil ka tirsan xisbigaasi daawadayaal haddaba xilligan oo kale marka ay soo dhawaato doorashada madaxtooyada saddexda xisbi qaran ee Soomaaliland mid kasta waxa uu ku dadaalaa sidii uu soo bandhigi lahaa isla markaasina uu hanan lahaa aragtida shacabka codbixiyaasha kuma eeko kaliya kala jiidashada codbixiyaasha balse mararka qaar waxay xisbiyadu aad u kala jiitaan siyaasiyiinta jamaahiirta ee ay ku kala jira saddexda xisbi qaran ee la filayo inay saameyn ku leeyihiin bulshada qaybaheeda kala duwan waa tahay daawadayaalintaasi ayaan ku soo gabagabeynayaa barnaamijkeena dib waxa soo taariikhda toddobaadkan aad ku daawanayseen nidaamka dimuqraadiga ah ee xisbiyada badan iyo waxyaabaha uu fursadda u siiyay siyaasiyiinta kala duwan ee Soomaaliland ee ku hirdama codbixiyaasha shacabka waxaan rajaynayaa inaad ka wada bogateen barnaamijka waxaad ila socodsiinaysay anigoo sagal beeldeeqa waxa soo saaray Ibrahim Axmed Maxamed Ibrahim Shiine sidoo kale dhinaca farsamada waa Maxamed Shire dhamaantii anagoo isku duwan dhamaantiin waxaad leenahay isaarag maqal dambe xiisan